وين سلامي بقول يا أخي تونك قرآن عدد سلامكم سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمدي مال كستود الدنيا دعالة إذا كتشوفتان بقى كان باين كسو سلامة يا يوتيوب فيسبوك جورجيجا marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamahayaa maalin soo geli doona haddii ilaahay raalli ka dhigo oona waxyaalo badan oo isbedele ayna ka dhicin yaa direct to baggage in Roma in Italy aad u mahadsan tahay dadka Itaaliya igala socdana aad aynu ku mahadcelinayaa aad iyo aad waa I'm from Rome marka waxa waa dadka Rome igala socda waxaan leeyahay welcome oo Italian people ama maaragtay Italo Somala waa idin soo dhaweynayaa kulligiinba thank you very much aan leeyahay maxaa ka socda dhulkii hooye markaan dib u raacno iyo Soomaaliya maxaa ka jira qaraxyadii ka bacdi maxaa laga qabtay wadanka say wuxuu jiraan dawladda ra'iisul wasaaraha oo ayaantan mashquul dheer ku galay inuu dadna ruqseeyo dad cusubna qorto waxaan dhihi lahaa maxamed xuseen iga keenteen waxaan dhihi lahaa xamse cabdi barre marka iyo xasan sheekh maxamuud maxay hayaan horta ilaaha waxay hayaan laakiin kulliba fariin aad u adag maanta waa u wadaa hadduu maqlayna waa maqlay intii yareedoo la soo gudbiyana waa dhegaysiin doonaa oo magaalada gaalkacyo la iga soo diray iyo waxay ka aaminsan yihiin cidda sacad xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisaba go'aano culusna waa ka soo bixi doonaan balkee dawladdii waxay noqotay waa ka xumaa inaan kelmadahaas oo kale iraa oo maanta aniga khatraa intaan uga daafacaya xasan sheekh maxamuud in afkayga waxyaalo aanan qurxooneyn laga maqlo horta aan ma jecli mana raba inaan ku dhaadhaco xasan sheekh maxamuud laakiin dawladdiisii waxay isku beddelaysaa ayadoo bilihii hore aan ku jirno waxyaalo la yidhaaho corruption oo weliba lagu xadahayo dhaqaalihii loogu taagalay maxawisleyda iyo ciidamada Soomaaliya oo argagixisada waddanka Soomaaliya maaragtay kala dagaalamaya iyo al-shabaab waana waxaan la qaadan karin waa wax impossible in la qaato in dhaqaalihii waddanka sida loo dhacay xoolihii gargaarku annagu aanan arag inaanan galmudug one pence aan la siinin oo aan la geynin abaarihii ka dhacay sanadkan inaanan galmudug halkii oo sanfara aan la geynin ama bakeeri caana aan la geyn ayaan ognahay oo dadku u soo wada qaxeen magaalada Dhuusamareeb oo markii Dhuusamareeb ay u soo qaxeenna dadku maaragtay ay yaabeen oo la yiri meelihii aan la geli karin markii laga tagay dhibkeeda inay leedahay aad iyo aad baan uga xumahay in lagu dhawaaqo al-shabaab lala dagaalamo ma xumo anoo halkaan mahad ka celinaya in maaragtay ciddii curadka hawiye oo murursada la dhahayay oo macawisleydoodo dhan ay soo wada banaan baxeen ay probably ku sii jeedaan dhulka ceelbuur la yiraahdo iyo galhareer iyo meelahaas loo sii socdo oo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bal waa arki doonaa markii ceelbuur al-shabaab waa cararahayaa baan yiri maba dagaalamina goormaad cararaysay bal horta dagaalka ka qayb gal al-shabaab aan aragno xiniyaha leedihiin oo aad kula dagaalami kartaan shacabka Soomaaliyeed oo taayid in ka taagan oo ma aragtay aad dhibteen maxaa la cararaysaan shalayba waa baadayseen dadka iska celiya saadinkii dhahaya jinnaa lagu galahayaa qofka qof dilo Soomaaliya marka aad jinnada ku gashaan al-shabaab oo cararin taas aan leeyahay marka waa u mahad celinayaa siday isku soo abaabuleen mursade halkaan aan uga mahad celinayaa thank you very much inkastoo aan ciidamo arag laakiin ilaah baan ku dhaartay macawisleyda meel ay kala istaagaan la waayay dadkii ayaa taayid noqday cid u dhalatay bahda mursade waxa la yiri no more in ceelbuur dhulkeena wanaagsanaa ah oo quruxda badnaa in maaragtay maalin kasta ay ku jiraan al-shabaab oo banaanka aan ka taagannahay oo maaragtay gabdhaheena iyo wiilasheena yaryaraan ugu dilay maaragtay waxbarasho la'aan marka aad aan ugu tahniyeynaynaa ciidda mursade oo kamid ah beelweynta hawiye oo weliba curafkii hawiye ah waa soo dhaweynaynaa oo dagaalada ay maaragtay ku sii jeedaan anigu daad aan leeyahay thank you very much marka ceelbuur waa kasoo jeedaa marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku mahad celinayaa garabkiinaana nahay wax kasta oo jiro iyo ammaan kasta oo lala taagan yahay halkaanaan inila fadhiyaa taas markii aan ka tago aan ka boodo waxaan ku leeyahay koobkii adduunka ugu weynaa ayuu jeliyay aan ku leeyahay ninkii la dhahayay xildhibaan Sambalosh waa la waayay nin hawiya oo xiniya leh oo hadla oo siday runtu tahay ka hadla markaad madaxweyne ka soo bilowdo ilaa kan ugu hooseeyo oo dhulka xaaqa inta u dhaxaysa hadday wasiir yihiin hadday ciidamo hadday wax kasta yihiin Sambalosh record ku jabiyay wuxuu ku jabiyay mi sheegaya meelo boogo waxa jirta cid xawaadle oo Sambalosh ku waaniyay oo markuu ku waaniyay ay ku guuleysteen oo xawaadle uu noqday gaashaankii ummadda Soomaaliyeed
oo waxaan ogaayay dad oo shacab ay ka dhinteen ayay wili waxay u taageen inay record ka jabiyaan wala jabiyeen maantay halkaan aan uga mahadcelinayaa Sambaloolshe qof aan jeclo aad iigu dheer waaye hadaladiisu waa cadiin waa nin aan la gambanin waxa uu rabo iyo waxa kale ma ahan dadka dockayeerka ma ahan sida dameerkii dadka dhinaca kale ka yeeraya waa hadalkiisu waa qoyan yahay walgii aliina waad ogeydeen inta al-shabaab u dhaaranayay inta dawladii maxaa Cabdullaahi Farmaajo hore dhamaatay u dhaaranaysay oo la yiri wala qaarijinaya Sambaloolshe dockayeer ma yaqaano hadalkiisu waa hadal ku galaayo oo waliba sida warankiina kuugu dhacaya feeruuna kuugu xanuunayaan jirku marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawiya maantay hadduu dad sharaf leeyahay sharaftoodii maantay Sambaloolshe tusay oo u sheegay waxa loo baahan yahay hadal looma baahno waxa la yiri meel hawl u baahan hadal kuma baskootaan wadanka al-shabaab baa haysta mana loo baahno in la yiraaho kan waxa la yahay Xasan Sheekh Maxamuud lacagaha investmentiga adduunyada ay ku galayso Soomaaliya in al-shabaab lala dagaalamo loo baahan yahay sababta ay too lacagaha loo bixinayo oo adduunku hadda Soomaaliya indhaha ugu wada hayana wax kale ma ahna waa khayraadkaas inaad cidda sacad kor martana waad ku tala gashay oo sacad ha u joojinaa la yiri laakiin Xasan Sheekh maanta meeshaan kaaga digaya aabay xalaal uma keenin haddaad hal bakeeri oo khayraata oo ku jira soonaha sacad ay leeyihiin hadda ka warisa ku leeyahay لكن مرة وانكي واحد يكرر وكذا عن الدولة قبل هذا رنتان كوشيء هيا ربا ضعك يركوا ربا واحد كان عاديين واحد بينه أي روك هاجدين لكن صومالي وايستقالنا حنيها مركل إسكتابتنا من وجوجنا يا مال حسن شيكو أنا برنتان كوشيء ولقى ضعك يرده وضعه هذا وحنا أكهيا ضعكي شلي maxaa Cabdullaahi Farmaajo fiyaaniinta uu ahaa oo Soomaalida dhinaca ka dhameynayay oo gobolka Banaadir qaraxyadeeda ku jirtay ra'iisul wasaaraha aad keensatay ayaa maanta qoranaya oo soo dhawaysanaya oo raggii waxtarka lahaana banaanka ku tuuray marka madaxweyne fashilaada waa dhex fadhidaa waana dhex fadhin doontaa 4 sano oo socoto anagu halkaan fadhinaa xoolo kaama rabno waa sheegaynaa laakiin say wuxuu jiraan hadalka brobiya kuleelkiisa in lagu taabsiyo maahan xasano wax ma fahantid anigu waa ku arkay hadalka in lagu taabsiyo maahan barkee sababtoo ah nimanka adiga iskuweerka aad iskaga dhigtood isku soo wareejisay waa ragga bahosha kugu ridaya waana ragga godkaada ku qodaya waana ragga Soomaali weyn ka sii jeedin doona oo dawladdaada oo loo baahnayn sanadkan inay fashil ku dhamaato ay fashil ku dhamaan doonta ana runta ku sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay adaa keensaday daarood intaad iskugu yeertay ma aadan dhihin daarood Ismaaciil oo ra'iisul wasaaraha adinka iskale laakiin aniga hala ii dhaafaatin waa lagu dhaafay حمزة كنستي حمزة مرنا ضد سيق منها مرنا ساق منها مرنا سيد دردرها وهو صبر حفيز في سواها كصباحية والله بالله وحيال الله قادم كريم باك صباحية هدي بنت أبوك أنك قرب شوقة يا الله يا بن حفيز كحمزة حتى صباحية مع ذا الله وأضع حمل شوقة وكون وياي وقولي كم قولي قال كاسه هرشيدا هذا لوجين واحد تسعد حفيز سيدنا مركز حسن شيء ضع كيرنا أنا بكون مدي دني هيصه لكن سياسة هذا هو كفشل ميسان تاس وانا كنت سايا وران فرماتشو دبدا uga soo garacnay soo qaadnay markuu yimid oo wuxuu keenay hawiye xagga laga tuuro hebel xagga laga tuuro abgaal hal qumiyo habar gidir hal qumiyo sheekooyin aan loo baahnayn oo miskiin oo laciif oo leeyimid tii aad adiga ku socotaa haddaad isku dayday inaad sacad ka saarto siyaasadda wallahi billahi tallah taariikhdu ayada isqoraysa xasan sheeko inaadan ka saari karin ay maanta ku cadeynaya taariikhdu ayada is soo qoraysa toddoba jirka sacad intuu nool yahay waa ku dhimanaya ayaan ku leeyahay bal wax yar ila dhageysta dhibaatooyinka ka socda inaynan wadanku waa federal dir iyo daarood hawiye jilac iyo jareer meeshan waxba la isku darsaday xoolihii la isku darsaday ankay anaf ma wadahan wadadan dhaqaale haysan oo waxba keensan karin jira okay waa la ogyahay Soomaaliya sida loo kala degan yahay iyo dhaqaaluhu sida uu ku kala yahay wadamada qaarkood hase ahaato federal ayaa laga doortay oo 4.5 ah waa ogolaanay waa yeelnay maxaa keenay inay anigu injiftu ugu kor noolaato oo aniga wax la iga soo raadiyo oo wixii xaquuqdaan u lahaana in la ii diido xasano ma waxay kula tahay wax la qaadan karo inay tahay waxaan u maleynayay siyaasadda 5 sanood banaanka ka taagneed inaad wax ka baratay laakiin wali indhaha ku xiran أنا رتك بشيء جاي مال هذا كفيلني
ayay biyuhu kaa soo gelahayaan waana arki doonnaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay cidda saacadoo aad ku taxtagtay oo kabaha aad la dul martay oo tusbaxyada beenta iyo shaalalka beenta aad saas garbaha u wada saaranaysaan saas shaal beena walaal waa laga daba yimid waa show off iyo itus taasu dowlad kumana socoto kumana dhisanto anaa runta ku jeed dowladdu waa adar waa wax kaleeto ma ku dhisanto shaalalka iyo bugta aad ku socotaan waxa noocaad Soomaaliya federalismaheeda inaan waxba la isla lahayn inaadan dadka hawiyaankay aad simi karin ayaan maanta ku aragnay okay bal xaggayga dhig ku adigu waa ka dhalatay oo Iqbaal Cismaan aan ka hadalno bahda habar gidir oo degtagal mudug maxaad u tartasay maxaad siisay maxaad u qabatay lacagii charity-ga ay la goyseen hadda oo koob iyo laba geedo ayna joogin oo abaarihii iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur meel kasta aadayay oo wax soo aruurinayay ayaan galmudug la siinay hooyo 80 jir oo biyo xabta weyday ayaan u samareetay dabeel duufaan kaneeco baahi adduunya iskugu darsantay iyo xooloodii oo dhamaaday horena waa uga soo hadlay waxba kama aadan qaban maanta iyadoo saas tahay ayaad waxaad keentay xasan sheekh inaa habar gidin dhexdeeda aad ka lafaysato laakiin waa ka xumaaya أدبر كاغو حما كلا فيس كهبر قدرنا ملنا يكو جين ماي أنا وحن كتوسها يعني وها أتهريرها إسكندكتين أو ملا إن الرجل متعلمين إيهين إيه أديك وحكات على الكلام إن أنا خطرت باركا كبا الله يهلون يبتين أنا دين استراشة إيه مريم والرجل أدوك مدحوين جيسها هذا تاجي كبا يجر كلافانا نسوق لا هاي مركا أديك يحمزو يا أسرع الشلي هذا لو يرى أيام حلاسهم كهذا لا بيتشتوي وردم كوافر بالتفاي فاللي مركا ننا وحوي ورفار كان يوحد متراني واحد راها أنا كرسي دار وضم كفرديان إنه صوب هذا وحوي لما كان يقدروا وتجوا وحوي جواب حمسنا بريجي هران كهذا لاي أو عصبانا ما يودم كوافر بالتفاي أنا كرسي دار وضم كفرديان رئيس الوزراء قبيل ما قالوا دارات كرسي بيسوا كفرديان يس أنا حس على غيري كرسي الله يوكسو فرديان وما يخبطاني ما ديو أذنكو إني قبت أولنها وياه وحضو قبل حسن على غيره بل دبوا الراعة حسن دقة وحتري حسن على غيره داراضي وقبنايه هويه وحو قبت أنكم معنا نارك ما كأذو بينا كتشا وابتو ترى كرسي داراضا كفرديا ولا الرئيس الوزاري كفرديا والجمهورية الصومالية الديمقراطية أو كفرديا كراسو دو كفرديا والرئيس الوزاري الصومالي مركز هدار تقبل أهم قبيلوين كذا يرير كأهوس وحقوق قبنايه سيدي أو سمين جري عبد الولي قاس وكله هدار بالله دمين يستقصي كمسي فدينيس لكن عبد الولي قاس توجني مو بالله وأقول رئيس الوزراء تي هذا تي وحقوق شفنا هي عنده أقعدين حقوق شف أنا سيدهيني ورأقعدين ولي قس واحد وطن كان كما أقول النقطة وردوف وطن كفدرالية هي أنا ما أعرف قبيل كستو الصومالية هلا يسكت حتى دولة الصومالية تاسي بده بدعينا أميسك كوجراعون اللي سنة كان وإنا وقاعدين كأركان رئيس الوزراء الصومالية وين نقطة الحمد لله شكر رب العالمين لكن إنه حصل شيء هذا أنك أنا هبر قدر وقلب ذكائني إنه كبها إلى دور مرة وهبر قدر كلا يدبر كسر ريحيسو وكاد ديده ولا وكاد ديده تاس إلى نجيسو وحيدك يبكاء من سين حصل شيء أنك ونرع منهم إرساقد الله نسير وكأن دقلنا هاي قيرادة كبدها ووحنا نروك كالإلهي وقليلين وضلنا الإيمان إرساقد من الله marka bal dadkaygu waxay ka aaminsan xasan shiiqow ila dhagaysa maantay waan ognahay cudur sacad nacayb baa lagu galiyay cudur ciidid nacayb baa lagu galiyay cudur ma aragtay waxa lagu galiyay Cabdullaahi Ciise nacayb baa lagu galiyay xasan shiiq maantay anigu shalay adan ku hadlay laakiin maanta waa ka diiday marka kabaha qoorta iga saartay adoo kabaha qaba waa ka diiday waa ku tuuriyayna das is nothing ka tahay agtayda ka yeel maayo in aan kabo dusha iga saar waa ka diiday taas gobonimada waa u dhalashay maya laakiin dadka gunnada qaata gobonimo iyo gobolaan waxay kala yihiin aan la aqoonin bal aan raaci هذا أكل وجابني wait اوكي انا ارجع هذا الضحايا
ملا مقلاي anyway anigu kuleyba ma maqlaayo tibada adigu maqlaysaan ii soo qora anigu maqli maayo ciddaan waxa u malaysay dhunta in ugu wada dhegan yahay anyway horta waa taas cidda sacad aaday kaaga xanaaqsan tahay aniga hadalka waa la ii soo duubay laakiin kuleyba waxaan is leeyahay waxay ku jirtaa waxaan ku leeyahay waxa u malaynaa ninaan aqoonin baa wax iska soo qoray waa igu qaldamaysaa horta qof kale aad ii malaysaa cabdigaa sheegaysid baan ka saayay anige waa igu qaldamin dhaadhicina adeer jaamacnaa la dhahaa jaamac bashiir nuurmaan ku dhaha waa igu qaldamaysaa qofkaa ii malaynaysid miihi anige marka waxaan ku leeyahay xasan sheekh waxaan ognahay inaad ku tala jirto inaad khayraadka waddankana aad soo saarto al-shabaabna saas maraykankuna uuna sugi karin ilaa khayraadkaas laga soo saaro khayraadka markay saas noqoto galmudug wax qaybsigeedii annaku bannaankan ka taaganna marka nin iyo labana kuma qanacno galmudugna waxba kuma haysano madaxweynaan lahayn ayadana waxba kuma haysano haddaan sacadnaayano adinkaa qabiilka ugu bilaabay qabiilka adinkaa keenay geedu hadday soomaaliya oo dhan ka dhaxayn lahayd meeshaan iska dhex ordi lahayn annagu qabiilba kama aanan hadlin goorban qabiil bartay ani waa intaan hadda anigu UK joogo weliba ma ahan waa intaan Facebooka soo galay intaan qabiil ka hadlayo oon qabiil bartay qabiil wuxuu yahay iyo meel uu ka yimid iyo midna ma aanan aqoonin marka waxaan ku leeyahay madaxweyne waa lagaa xun yahay anigu inaan wax kuu qariyana waa nabcahay waxna kuu qarin maayo aad iyo aad baan uga xunahay maaragtay aad iyo aad aan uga xunahay adigii ra'iisul wasaarihiina waa isdaba ordaysaan ra'iisul wasaaruhuna wuxuu bilaabay xafiisyadiisa qoritaan kaleeto iyo meelo kaleeto iyo shaqaale kale oo bilaabaya shaqaalaha Soomaaliya hadii la bilaabayo shaqaalana waxaan u baahannahay shaqaaluhu inay wada siman yihiin oo shaqo loo wada siman yahay ma fahanti marka taas ayaan u baahannahay annagu xasan sheekho waxaan leeyahay dulmiga inaad ka dhaafto cidda sacad ayaan jeclahay annagu nin aad shaqo siisay iyo mid labaad sacad oo dhan waxba uma hayo taas aad iyo aad aan uga xumahay taas aad iyo aad aan uga xumahay waxyaalaha lagu kacayna waxyaalo la qaadan karo dhalinyaro badan oo ciidaas ka badan oo Soomaaliyeed oo wasaaradaha ka shaqeynaysay oo shilin mushahara aan qaadanaynin ayaa ku jiray mataqaanaa wasaaradaha dhexdooda oo mushahar aan qaadanaynin in Hamza uu yiraahdo buugaagta laabta oo mahadsantiin iska dhabaxa ma ahayn hadiiba qof shaqaale laga dhigayo oo shaqaale la siinayo dhalinyarada ku jirtay meeshaas oo iskaa wuxuu u qabsay intaasoo sano 5 sano ka soo shaqeynaysay ayaa xuquuqda ugu horeysa ama human right kaba markay ay wax tixgelinayaan ama xuquuqda bini'aadamka qofkii meeshaas iskaa wuxuu qabsay intaasoo sano uga soo shaqeynayay ayaa shaqada la siiyaa nin qabiilna lama siiyo nin kalena lama siiyo xasanow waxa geesaha kaa fadhiya iska ilaali anigu tan kuu sheegaya anigu waa xanaaqsana waad ogtahay inaan ku difaaco waad ogtahay inaan mar kasta ku soo taageero dad aan u caayay madaxaada aan aniga shakhsiyan waxba idin ya wax aan ka rabana male laakiin waxaan ku leeyahay geedda 4.5ka la wada gaarsii waa wada gaaraa Soomaali oo dhan laakiin markaan ilaaho aniga tolkay aniga xisbigayga aniga saaxiibaday shalay waa kugu taageeray waa run laakiin xisbigaada asagu tiro badana ma Soomaali oo dhan shaqadeeda qaadan karaan waa maya inta muhiimsan oo xafiisyada oo adiga ku soo dhawiyay wasaaradda ra'iisul wasaaraha ay qaadan karaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ayuu xisbigaada ku ekaan karaa xisbigaada shaqo kasta Soomaali loo qabanayo kulli ay ka qaadanayo maya xasan ma qaadanayo waddanku waa 4.5 waa in la iska dhaxarkaa qabiilooyinka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyadu way iska dabarkaan nin waraqo been saxiixaya intii loo dhiibo wasaaradda arrimaha dibadda waa noo dhamaatay annaga waan ogeyntii fashilka ka dhacay hadeertaan dawladdii farmaajo geedka xumaayo dhaqanka ayo wasiirka arrimaha dibadda ayo u dhashay beesha mujeertay wuxuu sameeyay waad arkaysay maqaayadaha cuntada lagu qariyo ayaa tiin bari safaaradaha la geeyay haday France tahay haday Italy tahay haday meel kasta tahay marka waxaas adigu shaqo ku maleeyay laakiin waa lagu soo dacwooday hadda maxaa la rabay inaad tirahay safaaradaha dhan waa wada xiran yihiin kulli waa inaad soo gashaan wax ku maqlo soo galay ma aragtaa illa kulli in la wada bedelo waay inta daarooda futada halkaas kala geysay oo safaaradii oo dhan wada buuxiyay wala qaadan karna ma waddanku waa 4.5 safaaraduhu waa badan yihiin
قبيل كستو الصوماليات إلا جاية واي أنا قلت هاسا كحيقة أنا ما كنت هاي هويسي ما كنت هاي دارات كليسي ما كنت هاي جرير وينسي لكن وإلا يستوى أركا وضدوا ذا متعلمين وذا انترناشنال اللي جيساء ووردن كا وحصار إنكرا صوماليا نم ضد حرايا ضد وحصار إنكرا ودبدا وحقك كيني كرا وما أنت وحيالا برايد وكمبانية كيني كرا وحيالا بدن كيني كرا أيها اللي جاية السفارة ده هذا ريسك بتقولي بقصينايا تعليمته إلين يوحى أي سياسة أما بوليسي أي كسوبرتين لكن هذا نراه منك باسبور كحدا هي العادية حدا هي باسبور اللي ذكر اللي سينه وحي كدعي وضمنا يوروب وحنا قاعدين كرما أنا بقول الحمد لله يعني ما أنت مدحوينها نقطن وكل شيء وحنا بقول حسن شيخو دبعتها فرانسيسكا كتاجن أوتوماتيكلي وإن لقى قاعدة نكاس أو صاب اللي يراه مقايد بالمسمية ورقدها ذكر اللي سووا يديو اللي يراه سو عداية إنك صوماليتين يلا سيا نحن قد إيرو متقارنن منك مقايد إسكالي أيها اللي يراه باشتر صاحبي marka safaaradda wax lagu ma sameeyo maqaayada dhexdeeda waraqaha lagu waxeeyaa istaambada iyo wax oo dhan oo France ku taala Paris marka dawladnimadii Soomaaliya halkaasay maraysaa maqaayadaha cuntada lagu karsado jikooyinka oo Soomaalidu ay maqaayadaha ka furtaan halkaasay safaaradiina dhex fadhiyaan ay dadka kumiga ka arursanayaan iyo taamada Xamzana waxaan leeyahay Xamza waxa la yiri maba dhalana dhoonkaysan ogtida wali 4 sano ma dhawo 4 sano Xamzo كوما دولي ما حق وجود عيادين ما حيت هيدا كان الأريسي كوي الرفيانين تها واحد كاسم أو أنكور شاقي أنكور شاقي وحكيس كذا نحن سيكس عطا كما آدم قادم نيو وحن كلها يا دوح سمينا يصير واحد في عن سماية واحد في عن صومالي كوسي منتهي سماية أديك ليتو إن أدركي شاقي إسكالها إيريدان قبيل واحد نوبو قرننا وصاحب واحد نوبو قرننا sida geeda loo kala yaqaan dadka shaqada u siiyay ilaahay inta ka cabsataan qabri laba mitir iyo baraha la isdhigaayay ilaahay inta ka cabsataan saaxiibkan simbatiya ka raadso dawladda Soomaaliya ma gali karto dawladnimadu intaas waa ka weyntahay dawladnimada Soomaaliya intaas way ka weyntahay siyaasadeedu way ka sarreysaa wax kale in adeer ka sarreysaa hooyo ka sarreysaa aabe ka sarreysaa dadka dad baad xilka u haysaa ummad Soomaaliyeed baad xilka u haysaa geedana qabiilka laga joojiyay قبيل حب باك سعودة أو قاون أو أن الحساب كلمة هذا الصومالية هذا أنا موضوع معي بين إن شيء ولا قد في عينه تاس وتاس الرميه أن كهذا لي 6 مين مسافر 6 أنا يرمى قاعدة ولا كاني دونا إن صوماليا ضدك وقصر ريا الشباب كا يجيهن الشباب هو يجيهن ما أنت واقف ولا يصدري درك واحد كهذا لي عبد الله بلوان لكن أنا وراء واحد شيء مريكان إن المجاعيدي يكل أي وضعيان قبيلوين كصوماليات أو لا شقيوران من كل شيء أو أي صوبة وحيان ما توقعهما إن أنا أقول واحد استهى بعشر مريحان أو بدن لكن إلها قدرت برجعت أمريكان كي كسب بحدي قرمده بدوي صوم مرتي حالنا يتمد سيمستي سعود تحفيز كي عشان بيجي دكتور ورقدي إنتاس أو طريقة اسمه صامر هدي اللي هو مشارتين كليه كورب ضد العقاب هي ضد الشقية وعلماء وبع مشتكي وسياسيين وأقوياء ضد كاسويان الشباب عيال يروح الشقية مقعيدوا بيوردنا ولا الصوت أنا وحن كعب صندونا إلى عبد الرشيد أدوم ليش صوب قالوا وحن كعب صندونا أضيفري موها فرور موها عبد الولي قاس رك حوجا ما كان أركتي فضفضوط ما أركتي أو ضدك إيوه ما أركت قبيلوين كوكا شباب بطلان أن تحقلني منه أو أركو فضفضوط أم لا يأيكم إني سياسة كل جود يقالنا وقلك السياسة إننا نقودي ضدك سيقول درم إني نقدان بمنك وح كونكشن كلالة الشباب والله بالله طلع أي كائن ترى وأنا وقالي سن مقعد ولا سود كله وكل اسمه بدي شباب هم الشهتين هل نك ما فكر إن كستون أجهي إنه كجرو هبر جديد لكن أروح أنا وقاي ساعد هل نك كجران كون يا كلام الشيء عاي هل نك كجرمان سليمان حوجا وكل بدينهم جد صاروا ما مقل دتبلا والله يشاقي إنه كجران مرصد إسكابا ناف بأيكا وبقول كي سديتنا أهلين لكن ذكر أي مريكان كوكانين أو investigation كان وجهي أو ما أعرف وحياة بدن ولا هو تأذن وجمع أنا جوال وجا اللي كنا يو أو وحاس وجاب ميس كمريكان كإسارنت أو هل كان أنا كسلامة صاحبتي وقال لي عشان إنه هل كان كسلامة
oo aan ogeyn inay that time ay soo maaragtay daabacayeen magacyadii maanta gaashaandhigii Soomaaliya dad soo tiri xafiiska magacyadii waa ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waxa ka socda oo kaleeto waqooyi iyo maaragtay Puntland waxa ka socda wallahi waa wax abtigay boobay keeneen markaan dhulal ayna lahayn ma iska qabsadaan waltaaqo meel fadhiista ilaahay khayr ha inuu meel laga fadhiista abtigay waxa la yiri meeladaan maaru wadee waxa uu sameyn karay inta reeshii saxiib maxamed waxa la yiri dhulal badan ay ahayd waxay u soo socdaan la yiri galowina qabsadaan galowina qabsan karaan waa been iyo xayeysiis iyo xuduud ku gudub taas ilaahay oo ogayaa markuu waa ognahay been iyo maaragtay in la iska taageero reabtigay oo yiraahdo waqooyi saas hadda inta galaya waxaas ma soconayo laakiin dadkay dhulalka la deganaa hadday yihiin warsangeli hadday yihiin dhulbahante waxaa la yiri shalay annaku waqooyaan ka tirsaneen maanta waqooyaan la jirnaa horta taas waa garanti inay raaceen Soomaaliland taas waa wax ay ayaguna u saxeexeen laakiin garow qabsanayaan ma wax iska xirkan garow ma qabsan karo oo ma malaysid waa dhul weyn ee degan cidii waxa maaye sawaay afarta koonay ka imaanay inta soo daayeen arkay nin laba xiliyooda wallahi bilaay isma maxamuud aan u malaynayo shaatiga iyo bahlaha dhan tuurtay aan ku leeyahay saan mabanaan facda baadna marka dagaal waa laga fiican yahay waana waxa lagu dhameeyo Soomaaliya dagaal haduu wax taraayo soo dagaalameen wiilku ma dhashay wiila ku dhinta Soomaaliya hooyo dhaxa waa goblantay islaan dhaxa saaya u saarteen al-shabaab markaad iska saartaan waxaa loo baahan yahay dowladnimada in la intiraafo oo dowladnimada laga dambeeyo oo sharciga lagu kala cadsado oo ninkii wadankan al-shabaab intii uu qorin lahaa xabsiga dhexdiisa masruuf lagu siin lahaa bariis iyo baasto anigu waxaan qabaa in tiirka ay dowladdu geyso oo la dilo nin wax soo dilay oo al-shabaab horta in meel lagu xiro waa laga fiican yahay waa automatically in tiirka la dilo tiirkaas haddii la isgeynayo al-shabaab baa la geyn lahaa waxaa jira rag soo dilay oo ubijiidya ah oo gacan ku dhigayaal ah ayaa ka buuxa xabsiga laakiin caydiid baa la dilay yaki xayr ayaa la dilay markii xasan sheekh waa u bareeray hadda sacad oo sanka ka galay shalayna labada dhagood wuxuu ka galay xayr dhigtaan intuu ka galo dhigta kale uga baxay alshan waa tijaabinayo madaxweynuhu waxay ka tahay qabiilooyinka Soomaaliyeed inuu tijaabinayo waa laga fiican yahay inaad tijaabisid oo qabiilooyinkaada isku kiciso ilaahaygi maxamed qalqaan ku dhaartay nabi maxamed wallahi sallallahu alayhi wa sallam أنا رنت كل شيء قاعد أنا وشو بشكل سياسي في جيسا كاتاجر وتوجدا والله بالله جيت المدرب بدنا قرطي والجيب بتشوفه مركب بتقاشين هاي ومقلي سعيد سعد يموت بواق وعين قد يربان بطلين الراعي يعني كده سنة ما بنتقابل بعض بكاسة سبلنون إذا بعدنا قعدنايو اسكت له جد مايو بل واكدونا بكي أنت حوالي وحي قاتها دي حنيا اللي استكابته إلى اللي سوء بيالي كاسي قاسي سنتين marka waxaan ku leeyahay cayr masaan markaad madaxweyne la dhaqantay waa laga fiican laakiin dadku kuma muuqdo qurba joog oo dhan iyo Soomaaliya xasan shiid ay dadka uga shidan tahay ama soo fadhiisa ama soo tallaabada dawladdaadu qaado ayaan daba taaganahay annaka dhawaaqa dila Soomaaliya ka soo baxa ayaan daba taaganahay annaka marka waxaan ku leeyahay be careful ka oo geedi jooji al-shabaab waa la dagaalamaysaa waa kugu raacni dagaalkaas laakiin wixii intaa ka badan iyo inaad qabiilooyinka islaameed isu mootisid oo qabiilooyinka lacagooda la dhaxo waa ka xumaa 5 sano iyo bar galmudug xaquuqday Puntland lahayd ayay lahayd hadu maaragtay $1 maya anaku ma aanan adigu mala xisaabtanta farmaajo markay lacagtii heshadeela iyo galmudug iyo koonfurgalbeed xagee ka baxday ma aadan dhihin waa iskala wareegtay intaasaa bangiga ku jirtay farmaajo intaasuu ka tegay iyo lacag intaasaa akoonka ku jirta midna ma aad dhihin xasan maxay dadku marka ka aamini karaan adig waxyaalo badan ayaa iska daba imaanaya marka waxaan ku leeyahay xasan sheekh rag badan oo aadoween oo anigu markasta aan jiray dah gadaashiisa ka shaqeeyaan ilaahay baan ku dhaartay aad joogo dah gadaashiisa ka shaqeynaya oo markan qalinka iyo warqadda kula kor istaagay anigu inta ku sheegay qalinka iyo warqadda kula kor istaagay saamta qaata lala socda adaa diidaa la xisaabtanka maaha Abdullaahi farmaajo adii say ragga waaweyn sheegayaan anigu kan oo raayo mana ku dambaabi karo taas aad iyo aad baan idin salaamayaa waan idin mahadcelinaya walaalaha macaan Soomaaliyeed thank you very much aan leeyahay daadaan shalay soo gelin maalmaha inaan soo galaan keenay laakiin insha Allah بريتو وسوق الهدي لا نفتن بين المدايو وسوق الهيا وحنا أنت دمتين وهلك دمتين سجال إلى بعدين في يقرح الدولة وجيل الناس قلتين وأنا رجعت أنت كل ما تقول الله محرس
sababta saas u maleeya qof kasta waa ogyahay war aniga iska keenaatu ingiriis joogay mahad salaad baa sii sheegay geedbaankeed oo waddankan qarxiye ka buuxana waa sii sheegay ma soomaaliya qarxiye kama dhardimiyaa wiil waa ka dharrigtay laakiin wax ka dhalinayo dadkii male dadkii waa masaakiin shacabkii waxba ma haystaan waxay iskaga celiyaan qarxiyada ma haystaan waxba ma haystaan bariiskoodii aa meel cidlaa biyo-aanay dadku la dhimanayaan soomaaliya marka ma qarxay ka fakeri karaan aad iyo aadaan uga xumahay taas marka waxaan leeyahay inta dhimatana allah u naxariista inta dhaawacaana waa maqlaynaa waxa ka jira ilaahay si degdega inuu caafiyo internationalku haddaan inii sheegahayaa internationalku soomaaliya gacanta u fidiyey dhaawacyada xun oo dhan oo garaabada in banaanka loo soo qaado waddan kasta oo yuruba gacanta xasan sheekh uu soo fidiyey asay ku xiran tahay inuu soo qaado iyo inay halkaas ku qurumaan ay ku dhintaan xasan sheekh ay ku xiran tahay wasaaradda caafimaadka tiri iyo kutrikutaan iyo kantirada laa yiri iyo waxaas ka baxa adduuweynuhu gacanuu noo fidiyey madaxweynaha soomaaliya ku xiran tahay iyo ra'iisul wasaarihiisa haddii dad isxambaara ugu soo qaadi doono sidii farmaajo oo kale ee qadiijo diiriye iyo duruubo iyo maaragtay ka faa'iidaysteen inay isxambaar ku keenaan xafiiskii ra'iisul wasaaraha dadkii dhaawicii aad weedeen maaragtay 14 maaragtay oktoobar oo sooba ka dhacay waa la ogaa dadka horreeyay oo qarax yar gaaray ayaa xambaar afrafarkii looga soo qaatay marka adigu dowladdan waa ogaanaynaa laakiin mid waa inay wadaa maantay oo waa garantii hadalkaan waxaan rabaa nin kastoo isbitaalka ku jiro dhaawaca in cajalkayga maanta la gaarsiiyo nin kastoo dhaawaca waa inaa gaarsiisaan adduuweynuhu gacantay noo dhigeen waxayna dhaheen welcome dhaawacyadaa la soo qaado garaabada waa la daaweynaya wixii laga qaban karo ay ka qabanayaan xasan sheekh gacmaha loo soo fidiyey telegisaala usoo wada dhacay telegrammaa usoo wada dhacay taleefanmaa usoo wada dhacay winowin madaxweynaha waxaa la yidhi welcome wixii aanan soomaaliya lagu daaweyn karin dabadda loo soo qaado kaanaa la yidhi marka madaxweynahay ku xiran tahay hadday isbitaalka ku unayaan uu dirxigelaayo meelihii dhaawaca ahaa wilbuu googo-een iyo haddii la daaweynaayo la dhabaayo la dhaqaayo dad wax yaqaano aqoon-yahana loo geynaayo jarmalaa la keeni karaa holanaa la keeni karaa sbain baa la keeni karaa ugu iidato intay ayaduna soo dirtagteeda waxaa la keeni karaa ingiriiskan oo ayaguna soo diray oo la yidhi walkan oo ka xumaaday waxay ka dhacay 29 muqdisho inay la mid ahayd midii 14 hore oktoobar 2017 marka Itaaliya sidoo kale tiri kulli gacmaha loo soo wadataa xasan sheekh ay marka ku xiran tahay asaga madaxweynaha Soomaaliya dhaawacan asar laga dabin waxaan baar laga dhigin in xuquuqda oo dalka iyo caalamka ku leeyahay lagu soo qaado oo lagu daaweeyo xasan sheekh ku xiran qof kale kisbiga madaxweynaha Soomaaliya ku xiran tahay taas qof kale waxba kisbiga wasaaradda caafimaadka kutrikuteen daawadii ay gadanayaan dhiiga la iska qaadaya waxa la yiri 35 dhiig ma laga qaadaa ha oo dadka dhaawaca u shubaya ha $35 ma la socdaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ragga asaga wararka u keeno tiftifka oo rufiyaaniintiisa ah iyo kuwa ma arkin ku jiray ma ogyahay xasan sheekh ma la socdaa wayga ma igada dhigaysid madaxweynaha waxba la socdo ka yeeli maayo maxamed cabdullaahi farmaajo perfecto uga socday xasan sheekh maanta perfecto uga socdaa asaga wuxuu yiri waa in daaweyna dhibaatada farmaajo inay geysta ama in ka dhaqaayo gudaha marka annagana waxaan niri inaan ku daafacno oo ku doorno ogow adawakaas marka madaxweynaha noqday ibaadada dadka ka wada xirtay صح وحط مقدمة لكن داوعة الدولة وبضح لك يداويان لكن دولة الصومالية ما أقولش هيدا داوعة اللي داوية ما هي الصومالي وساكن ولا إيه اللي بدحينهم أنت ما شاء الله يزريك ما شايف لكم الحيوانات يقولون يكلم يسمع بس يبرو يتحزن شو معضلان قناعي لكن ما أنت مو ضرع لك كلام ومدة داوي وقال أصلا تقول لي سقويس المدة ما شو قصة نيستي ودي عبا إنه هيسنة جرين مو ضرع لك كلام حسب شيء إنه الديارة ده الصوص سعره والله كان الدرجة ولا الداوية هذا هو المدة الفضل بسرعة مش شو أنت يقول لي محلي تانك يو حسب شيخ محمود وعدوا له وصوص سعره هذيك الأول مثلا كرمان marka walaalay macaan waa idin salaamay waa ku dheeraaday thank you very much hadaladu aad iyo aad u soo kululaanayaan dagaalada wadanku waa socdaan waxyaalo badan oo waxa jira dalada ka socda oo iskandala ah iyada nafteeda waa ka wada hadli doonaa markaan badbaadnayna waa idin salaamay thank you
waxaan leeyahay subscribe iyo follow-ga xaggiina waaye hala saaro hana la sheergareeyo hana la gaarsiiyo dadka dhaawaca isbitaalada ku jira in adduweynuhu oo u baaqay in la keeno oo la daaweeyo dadkaas dabadda loo soo saaro waana mahadsantihiin thank you very much maxamed jiro waa ku salaamay walaalkay macaan dumaashadayna bisalaan thank you aad ayaan idin salaamahay hayaa